Okay. Okay. Mm, marka waxaan cabdigeena waxaan ka bilaabeynaa as usual waxaan ka bilaabeynaa crypto bitcoin waxaan sameeyey video baan duubay bishiyaan duubay waxaan duubay sagaalka bisha agost kadibna dee geeri tacsiyaan soo gashay marka ma aanan runtii wax soo dhigin laakiin taas waxaan ku sheegay bitcoin videogaasito waa soo dhigi doonaa somehow suuqa inuu markaas waxaan maraynay maybe in a video haddaan shiri karo maaha it's easier like this like that. So video wuxuu leeyahay waxa weeyaan haddii uu meeshan zonekan yimaado oo buy to hold u noqdo aroortiin soo galay okay let's go away okay السلام عليكم قرابة شو لو هذا فيديو كنا عصب as usual نكمل علينا بيتكوين أو هاي بيتكوين فلان قايم بأسلوب الشيء كدبنا وحن قلنا كوينة كلا إيو وحي okay so هو حد اسمه opportunity ما ماشي أي صباح رواية intaan maraynay isbuucii hore markaan soo dhigayay I think zone kan ayaan maraynay wuxuu baxay haddana wuxuu sameeyey laba touch kale so kan camal buu sameeyey saas u badnayn rugtay wuxuu ahaa kaliya bom okay kabacdi muxuu sameeyey saasuu sameeyey so intuu usoo dhaqaaqaa xooganaa so markii macnaheeda wax correction dhan ma lahayn so aniga dhaqaaqdaas u xoogan iskagama degdego waa inuu isiiyaa wax kale haddaa arag suuq dhaqaaq ku istaagay sug so muxuu sameeyey wuu noqday noqoshadaas I don't care wuu jabi loogi mar kale marka wuxuu sameeyey new maxaa la swing low ahayd mogta new swing high iyo new swing low kadib muxuu sameeyey wuu baxay meeshan buu tegey wuxuu kusoo noqday order block keesay kabacdi buy buu aaday because of that ayaan aniga marka u galay buyga buygan uga qabsaday markuu intii meelan ka qaatay boom ilaa inta maxaa uga dhigtay TP-ga ilaa inta waxaan TP-ga uga dhigtay because waxaan arkay meeshan waxaa isdaba yaalay a lot of imbalances marka imbalancyada suuqa hadduu xoog ku socdo ma wada soo buuxinayo laakiin muxuu sameeyey markuu inta kan u noqonayo ayuu kan soo buuxiyey okay ujeedo intuu haddana ku noqday si fiican uu soo buuxiyey hoos buu baxay markuu inta maray wuu buuxshay wuu jabsaday kii koowaad and then kii kalena tartiibtaasa loo jabsaday marka waxaa iisoo baxday marka in kan loo baqbaq leeyahay sidaas darteed order bloggy intuu ahaa by the time aan arkay pullbackan inuu saan sameyna waxaa iri there is no way suuqan inta kasoo noqdo so intaas meesha uga tagay so it has to go up and it has to go up here meesha order blog oo low time frameka suuqa sidii buu sameeyey ani intaan uga dhigtay wiiga meeshii uu balanceka ku dhamaanaya u dhigtay meeshii iisoo taabtay kadibna hadduu ilaaha kuuron yahay uu ku noqdayba so hadda marka waxaan u jeednaa haddaan swinga fiirino waxaan ujeednaa okay kan aan ka qarino intaan waxaan ujeednaa swing high
between low, between high, between low, between high. So reversal waxaan dhihi karnaa kaliya haddii uu jabiyo zonkan. Hadduu zonkan soo jabiyo, I see a reversal possibility. Haddii kale maaho, there is a huge chance intuusan sameeyo meelahan kusoo noqdo order blockan soo qaato. Okay, kadibna uu damac ka galo kuwaaseeto. Kuwaas hadduu aadayna, I always prefer the highest because the higher probability, but meelahan inuu kusoo noqdo macquul. Like inta waa too much of liquidity. Order block hadduu u baxay, order block haddaa fiirisid. Order block hadafkiisa wuxuu order block inuu soo xiro. So there is a possibility in asay naftiisa jabiyo kan xataa sidaas oo kale. Okay. So anyway, waxay ahaataba meelahaas uu suuq u baqbaq leeyahay haddii uu sidan u dhaqmo order blockaas uu ka kala filayo. Haddii kale maaho, aniga inkastoo aan sell u geli suuqa, laakiin haddii aan sell u geli lahaa ilaa uu kan soo jabiyo, aniga ma kusoo jaaminayn suuqa. Markuu kusoo jabiyo waa inaa fiirisaa order block banaan oo markaasna hoos aado. Because the highest probability markan waxoogaa from that no will be suuqa intuu hoos noo soo aado selka uu meelahan noo yimaado uu meelahan ka kala firay markaas suuqa wuxuu sameeyey reversal high time frame. maanta niga fiinayna hana suuq meesha laga rabay uu yimid, literally suuq meesha laga rabay uu yimid. waxaan sii raadinayno waa gardaro. inta waa highest point, inta waa lowest point. This candles oo maxaa la jajabiyey majeeda candlekaneeto, daskan cagaarkaneeto maogada ujeedaan cagaarkaaseeto kaliya ilaa wiigii sadaan buuxino meesha lagu dhex jira dhex walaaqanahay. order blockaasna waa midka hadda uu ku istaagan yahay umalraya kaneeto lama rabo kaneeto actually somewhere lower bahnin baa matar. So hadda saa ujeedid maxaa noo muuqda, waxaa noo muuqda order blockaas meesha isku jiray in uu suuqu taagan yahay. wuu sii jebin karaa, yes, hadduu inta jebiyo meeshaas loo socdaa oo haddii wiigan uu jebiyo meeshaas loo socdaa. laakiin high probability weeyaan xataa inuu inta ka kala filayo suuqan uu completely buy out. So marka baahiska aad maaha mogta baahigu aaday waa inuu siiya opportunity fiican. Because the problem aniga inta inuu suuqan sell ka soo aadayo, sell wuu soo aadi karaa like sell ku soo aadayo. Actually this should be my level because inta wuxuu ku sameeyay 1 2 3 touch jogi 1 2 3 touch ama jog intuu ka bilaa jogi ugu weynaa waa kana. So marka maxaa waay marka order block ku jira meeshaan aniga way soo dabooleen probably. There's something down there for sure. Exactly as I said. How is it? So this is where we are now. So inta hadduu soo jabsado waxaa laga yaaba inuusan ilaa hoostan aadeen waayo 3 touchka ayaan meeshan aniga aan xisaaban 3 touchka maadaama uu sameeyey 3 touch talk impulsivekii hore impulsive lamid ah. impulsivekii hore ma dheera. If you look at this impulsivekii hore it will be this one actually waxaan lama xisaaban karno. intuu ku geena haddaa inta u dhigno maxaa u jeednaa exactly zonekaaseetuna keenaa. So that is an opportunity.
لكن سؤال taalo waxay tahay ahaato what to do intuu soo taabtay okay hadduu suuq intuu usoo gaaray tag inuu hoos ha u noqdo ilama ah waxa macquula haddii uu suuqa hadda inta noo jabsado intuu meelahan ku mumurubsado uu inta jabiyo how is it gonna happen inuu inta soo aado mujeedaan taas so hadduu inta jabiyo there is opportunity inta hadda inuu jabiyo markaas meelaha usoo doonto markaas baxo that's another opportunity anyway pullback will happen so pullback gaset inaan markaas inaan buy ka gato buy aan haynaya la rabaa marka buy oo swing waa meelaha waa swingya waa 2 beri 3 beri 4 beri hadii dhowr beri ah ay weyaan mal rabo waxaan rabaa mid aan intaan gato aan hayo where is time framekii intaan meelahan ka gato aan hayo ilaa iyo meeshas 160 180 impulsive soo socda meelaasuu tagaya wax kale ma sameeya aniga aan ahayn impulsivekii hore tan waxaan ku barta waagan trainlanyada ay ku shaqayn jir naam laakiin impulsivekaas impulsive lamid ah intuu geenaya zonkas dakasi kormol 180 so between 160 180 because malihid order block so saa ujeediin waxyaalaha on ka hadlaya waxay ahayd suuqa inuu haddii uu isi opportunity pullback ah ugu dambeyntii aan buy to hold hayo so inta waxay ahayd opportunity laakiin inta maxaa ku jiray 3 touchka hadduu suuqa 3 touch sameeyo is very very difficult inuu markaas jebiyo kan ugu dambeeya yes kan xoogaa hoos buu sii aadi karaa liquidity uu qaadan karaa laakiin the lowest hadduu mar dhaafo uu chok sameeyo it will be very difficult suuqaaseeto in uu jebiyo lowgaas sidaas darteed inta hadduu yimaado for me it was inaan buy ka gato haddaa xasuustaan suuqa wuxuu haystay suuqa wuxuu haystay so suuqa wuxuu haystay inta waxay ahayd an opportunity iyo xisaabsaneen haddaa inta ku arka marka hab aan ku gadan karo set up then it was good to go so low time frameka aan hal mar low time framekaas waxaa noo tusaay okay inta maxaa ka dhacay marka kan waa mid gadaale inta waxaa ka dhacay chok low time frameka okay inta meesha aragtid laakiin this is the cleanest markuu chatka sameeyey waxaan dhahay intuu soo noqon karaa intuu kusoo noqday laakiin ma uusan jibinin haygan hadduu intuu kusoo noqday hayga jibin lahaa markaas waxay ahaan lahayd kaas laakiin aniga maxaan arkay kanid maadaama jibinin waxaan dhahay suuq inta usoo socdaa order bloggaas usoo socdaa because there is only one imbalance kana wuxuu kasoo noqday imbalanceka dhexdiisa hadduu imbalanceka dhexdiisa kasoo noqdo you know most of the time mid labaad uu soo noqonayo uu hoos sii aado hadduu suuq markaas correction ku jiro hadduu suuq markaas impulsive xoogan ku jiro uma soo noqdo imbalanceda si fudud so wuu baxay intuu kusoo noqday intaan order barkii uu dhigtay so marka waxaan by the way hadda haystaa coinbase so kaas ayaa hadda aan ku maalgashtaa waa saas oo la socda so saa ujeedid marka si fiican uu dhaqaaqay okay dhaqaaqaanid of course aniga dhaqaaqa waa sugaya laakiin dhaqaaqa intuu ka baxaan suu egyahay you cannot maxaa lahaa predict ilaan baa og laakiinse wuxuu sameeyey ilaa intuu kasoo dhacay so taas maxay ii muujinaysaa maxaa la dhahay suuqaneeta inuu bulishki bilaabay okay so okay taas waa wixii soo dhacay marka maxaa soo socda
waxa soo socda waa very easy suuqa hormay waa noo bilaabo so impulsive kii aan hadda kan ku xisaabtay kadib pullback ayaa dhacay so pullbacka it can happen inuu meelahan aan ka fiirino imbalanceyada ku jiro okay kadibna aan dhahno imbalance kan soo socda so for now it has to be a little bit more clearer okay so waa meel dhexa weeyaan kanuu weli ku dhex jiraa kanuu weli ku dhex jiraa so there is a probability inuu kaneeto hadda meeshan uu hadda soo taartay uu liquidity ka dhigo hoos usii soo taarto kabacdina baxo okay so ma jirto haddeertaan ma haysano pattern clear ah so markuu patternka clear ahayn you go for probability okay because muhiim ma aha suuq inuu sida adiga aad u xisaabto inuu sameeyo muhiimka waxa waaye markii uu ku siiyo wax clear ah can you execute ma leedahay geesinimada ama maxaa la dhahaa isku hubnaanta aad ku geli lahayd because wuxuu kuu sameeyey wixii aad suuq ka sugaysay oo ah in one of the probability intuu sameeyey aad hadhow execute gareyn kartid so probability can be 5 10 it doesn't matter laakiin muhiimaddu waxaa markuu mid ka mid ah pattern clear ah oo reversal ama chord wax ahaata waxaad markaas aad ku qoran marka uu sameeyo ma ku dhaqaaqi kartaa ma geli kartaa mise weli waxaa leedahay maya mafka maybe intuu imaanaa maybe intuu tagaa maybe xaguu ku tagaa so aniga pattern nadiif aan u baahanahay so inta liquidity waaye so I will not consider this a pattern weli sidaasayto suuqa wuxuu sameyn karaa inuu liquiditydan jabiyo uu soo yara noqdo uu baxo wuxuu sameyn karaa inuu sidiisaas ku socdo okay wuxuu sameyn karaa inuu uu soo noqdo intuu inta imaado uu baxo okay so the probabilities are money probability are not banana so anyway I already invested okay so bilbil baan wax usoo geshan doonaa so waa inaan bil kasto coinbase-ka kii kale oo binance weli waxay kama soo bixin so coinbase-ka wax badan kuma shubin so bilbil inaan waxaas ama 2 bilood ama 3 bilood waxay ahaataba inaan geliyo maybe inaan soo sameeyo tutorial kuma fiicnana I'm very bad at tutorials anyway sidaan u furto kaas idin sheego waa dhici kartaa so marka suuqa haddeertan waxaa noo furan so we'll give you few inuu inta yimaado okay then ama inuu inta yimaado inuu inta yimaado okay and that probability is inuu suuqa saas u baxo I usually have only 2 probabilities so haddii aan 3 probability haysto micnaheeda waxa weeyaan suuqanayto wuxuu leeyahay maxaa dhahay haddaan 3 probability haysto micnaheeda waxa waaye suuqaasi aan clear markuu clearka yahay one probability is high probability the other probability waxa waa hadduu saan suuqa raba sameyn waayo ayaan u diyaarsadaa that's it haddii saddex probability meesha soo baxda micnaheeda waxa waaye suuqa is not clear and right now is not clear so hadda waxaa ku jira waxa waaye dadkii inta ay soo dhaaftay meelay ka galaan okay because inuu kan jibiyo waxay muhiim ku tahay let's go a little bit higher time frame okay inuu kan jibiyo muxuu noogu fiican tahay because kan waa weekly shock so there will be a good pullback okay marka hadda labadaneeto kore inuu sameeyo ayaa high probability anigii ah labadaas kore hadduu ii sameeyo uu kan jabiyo then we will see a good pullbackgaasito similar to this wuxuu ka noqon karaa retouch oo wuxuu noqon karaa just a pullback cleaner waxay ahaataba pullbacktaasi si fiican looga faa'iidaysan karaa of course hadduu inta jabiyo meeshaas kama soo noqonayo wuxuu kasoo noqonaa order blogyada ugu soo horeeyo so order blogyada ugu soo horeeyo wuxuu noqon kartaa kan naga soo push gareeyo okay amase kan naga soo push gareeyo which is the highest labadan mid okay so hadduu inta jabiyo it will get to this level
go back, we can go to this level and go back. Structure waxay ku soo noqon. So, hadda inuu structure samaysto maxay taraysaa marka? Hadda hadduu structure fiican samaysto inaad deep ka imaado ku kor aada kaasle laga sii bushkareynaa laakiin hadduu saan ku baxo hoostan ama 50% inuu soo doonto ayaa macquula macnaheeda maanta waa waxay ugu shiilan allergy inuu hoos la keeno meelaha uu ka baxo ayaa high probability ah okay so ama ilaa zonka xataa inuu imaado it's a little bit high ma u jeedo runtii sabab uu ku iman karo zonka laakiin ku iman kara there's no 100% soo qaanigto I don't care probability that I care can I execute markuu one of the probability clear maxaa lahay reversal isiyo so sidaan hadda isku ognahay muhiimad waa inuu inta noo jibiyo hadduu inta noo jibiyo markaas bullback fiican helaynaa wixii aad ku darsanaysid oo ku gadanaysid inaad ku gadatid so coinbase baan hadda gatay oo hadda aan haystaa laakiinse weli ma aanan maxaa la dhahaa ku exit gareynin so waxaan ku exit gareeyey mid kale oo aan haystay oo waagii aan inaan haystay mid waxaa jira oo yar igu jireen adiga 200 igu jira maahan aan ku gashtay okay coinbase-ka ayaa wax ka yara daahay by the time market was meelaha marayso because that there is no in aan maxaa la dhahay aan ka gadan karo so hadduu saan sameeyo boom 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 harster high probability hadduu saas ku baxo 50% wuu imaanayaa ama lower case la weak probability compared to 50%. Okay, but the 50% hadduu the bike wado it won't be hit 50% will be somewhere up here. Okay, so correction kaneeto inuu xoogaa correction fiican noo sameeyo noo fiican tahay because hadhow markuu soo noqonayo zoomkaas inuu kusoo noqdo because we don't want it to come back here profitka dhan waa kaa noqda waa macnaheeda so saas ayaan bitcoin ku isku ognahay solana aan balgalno okay solana naftigeed fiiriyo waxay meeshan ku samaysay 3 touch that's one of the reason aniga aan u dhahay in oo bitcoin meeshan laga soo celinayo the high probability right because solana maxaa la dhahay sida u samaysay solana waxay samaysay 3 touch 1 2 3 here chop bay samaysay intaan okay inta waxay ku samaysay ama chop waxa u taqaanid maxay inta timaado tii u samaysay waxay idana intay this iyadana waxay saan ku saarahay waaba jibisaba weekliga ida week ay ku jibisay week ayay ku jibisay so that is crazy so inta imbalance ku jira inta on the blog markaas so this whole zone in la soo noqdo macquul why this is up to this level come on RGB bye okay so I must say lower probability because there are not many probabilities here waxyaala loo hadda inta soo jibis meeshaas inay ka noqoto laga yaabaa bogada si fiican ujeedaan oo wiki isdhaafsan so lower time frame for sure there is something so I think anyway these two zones ayaa macquul ah iyadana inay kasoo noqoto so ethereum is very similar dhaqaaq fiican uu sameeyay actually ka fiican kan solana and ethereum ma uusan soo taabaninba meeshan ani maxay ahayd probabilitydeeda ugu fiican inay inta soo taabatay kabacdi baxday okay inay zonekan iisoo taabato that will be high probability inkasta oo cover garaysnaa inta labadan liquidity ahaayeen for sure marka ma lahayn order block waa lasoo xiray okay so sidaas darteed order block furan ma ahayn order block furan inta ugu horeyso so kaneeto inta order block baa ka jiray waa nusaa laga soo xiray
haddana inta order block ma jirin laakiin kan ayaa laga soo push gareeyay kan marka order blockanito liquidity-tanito isbari inaan wiikidan liquidity oo low time frame waaye so liquidity ayaa la qaaday order block kan ma bisito oo balance jirin laakiin inta la noqday it was pretty much هذا كان عمل يعني ما أنا كذلك there is no clear pattern there is no clear pattern لو clear pattern جرين السوق waxa isugu soo qajaantaa baan kardar ilaa uu 100% kor aado no clear maxaa lahaa probability anigu ma jiro weyn so idana hadda waxaan ka sugayaa the same thing weeyaan hadda wages iyada xataa so marka taas macnaheedu xataa macala bitcoin inay pullback fiican soo sameeyaan let's take from here to here just order block meeshaan correction ku jira because otherwise it's imbalance intana waa second one inuu inta imaadana waa macquul بعد منين bitcoin حتى بسمينيسا ومن ماشيز well the same situation وين pattern في عنك أو إذا جاء ما تلقى عشان يقرأ هذا لايف واحد يقعد هنا في الشو sorry لايف يقعد هنا في الشو شقينا في ما عندنا أوكي اسكتوا أنت هذا الفيديو أنت بتجيب سو تذكرني هذا بتاع مسمينا هناك واحدة معانا شقيرس أنا بيوش أديت ممكن قسم يديت محل إديت شو قليا إذا صدقت حين لايف سمي لايف قلي فبعتني تو ما بكذا حتى استيقظنا في ما لا تصدق فعلا لكن في ما صح بس تشيك اس بي 500 عندك جرتو اس بي 500 حالدا بيكو جرتا إذا نفتكر حنك سوقي 50% zone كانت نتمنى كان الكام actually 50% laakiin inta waxaa ka koreeyo liska wanaawarka gaabkaas inay soo bixiso zoonkaas inay isticmaado it can go lower but suuqyadan bullishka ah badanaa they don't go for all the impulsive markay correctionka ku jiraan impulsive kasta xirayaan laakiin markay impulsive ku jirin way iska furanayaan so sidaas darteed korkaas inaan fadhac waa xalo weeyaan so waa la gadan karaa infact hadduusan ahayn expert oo chart analysis ama fundamental analysis iyo waxaas uusan ku fiicnayn ama uusan waqti u haynin tan iyo inuu gato iska fiican tahay sp 500 way ka profit badan tahay badan maaha laakiin adiga usually beats sp 500 so marka qofka individual stocks uu gadanayo hadafku waxa waaye to beat sp 500 qolba gooshi waxa waaye to beat sp 500 حتى investorada waaweyn beat sp 500 is the goal sp 500 wuxuu sameeyay 8 to 10%. انت we will see ناستك وقت ما ادري شنك سوغاي clean in the message chogan it was not clean because touchka wuxuu ahaa very clean kana uu ahaa kan nadiifka ah sidaas darteed inay new low sameyso way fiicneed hadda kan waan soo dardinayaa here is the new reversal point marka bahalka aad u weyn yahay into again marka let's clean up the last imbalance is here imbalance ugu dambeeyay intuu ku jiraa intuu ku jiro samajin sidaas darteed order blocka
waa intaba marka zonkan is the first laga soo celin okay haddii inta uu soo aadna vegas imbalance ka kalinsan isagana waa zonkan baalkan gudihiisa ah labada meel soo taataaban karo so this two is high probability inuu kan soo doonanayo kadibna uu kala firayo laakiin of course aniga ma ku shaqaysto I just do check because kuwa aan haysto stockyada badankood meeshaas ka yimaadeen so intana waxaa yaala dxy dxy dx waxaa maxaa la dhahay zoonkan ayaa looga qeylinaya this was actually liquidity this was as well liquidity waxaa dhan liquidity ahay macala kan naga xir so zoonka aan hadda sameynayo soo dhaqmi doonaa su-aal da-weyn so imbalanceka intuu ku jiraa imbalanceka intuu ku jiraa intuu ku jiraa imbalancekan hoosna waa ku jiraa for sure soo jeedi so there is imbalance here too so those are the 2 points marka tan mid kore waay haddaaba la joogaaba okay for the blog haduu soo taabta wiigiisa kale so I expect inuu kan imaado so I will expect the highest probability is the market inuu imaado zoonkan imaado how maybe inuu pullback yar sameeyo ama uu sameeyo waxyaalo badan markaas meeshaas ka imaado or dxy so let's do something like this wuxuu noqon karaa ilaa inta oo blogger wuxuu noqon karaa fvg ama imbalanceka wixii ahaataba inuu pullback sameeyo kabacdi hoosta saaro meel saas ku socdo okay so waxaan rabay inaan intuso waxaa la yiraahdo waxaan isdhahayay kan groupka inta xiseynaysa in maxaa telegram groupka soo geli kartaan linkii waxaan kusoo darayaa livekanit hadda markuu dhamaado linkii soo dhigaya so kadibna insha allah linkigaas ayaa kasoo geli kartaan I would like it to have to be telegram yar oo waqti badan iga qaadani sidaas darteed intaad soo galaysid isku day ina active noqotid haddii kale inaan kaa tuuraa macquul so haddii rab inaan lagaa tuurin active noqo so now active noocyo kala duwan aad noqon kartaa waxaa noqon kartaa inaad wixii su-aal soo degtid wixii of course forex kuma jirto so haddii aad forex ku jirtid it make no sense inaad forex soo dhex laakiin haddaad crypto ku jirtid is pretty much valuable so marka crypto iyo stock marketka marka waxaan kaloo helay oo aniga xataa aan hadda aan u bedelanayaa mid wataa inaan ku dhahay waxaa idin tusi doonaa 2 euro account inaan kobciyo stock marketyada so marka waxaan helay interactive maxaa la brokerka la yiraahdo interactive brokerka la yiraahdo waa broker maraykanka iyo wuxuu ka furan yahay Europe iyo mid wuxuu leeyahay marka international so internationalka Africa badankeed buu ka furan yahay especially East Africa wuxuu ka furan yahay meesha la yiraahdo Kenya Uganda Djibouti Tanzania kama furna laakiin saddexdaas waddan ka furan yahay marka saddex waddan qof kuu joogo oo ka furan kartid account is good laakiin qofkaas waa inuu ku saacdo ama waxaa furan kartaa ama PayPal ama waxay ahaata mid laakiin oo online adii lacagta ku maalgashatid taasaa samayn kartaa emailka aad ku furayso waa adi inaa leedahay qofkan waa inuu telefoon labaad uu magaciisa kugu furaa
adiga haysatid waayo message-yadii markaa maamulaysid waxay kusoo dhacayaan telephone numberka waxay rabaan badanaa maxaa la dhahay code waxbaa lagu soo diraa si aa u gashid iyo waxaas maxaa la dhihi to verificationka ah sidaas darteed intaas inaad qofkaas ka heli kartid waay qof Djibouti joogo qof joogo maxaa la dhahay Kenya qof joogo Uganda oo dhehel ah oo isku hubtid haduu jiro saddexaas wax inaad haysatid emailkaaga furayso inuu emailkaaga yahay telephone numberka ku xirayso mid qofkaas kuu furay adi aa haysatid inuu yahay iyo PayPal ama I don't know how many maxaa la dhahay oo payment ka jiro aa kuu furan yahay adiga waxaaga dhan meesha ku maamulaysid markaasid ilmaa hab ah waxa kuu soo dhacaya masaasaa samayn kartaa wuxuu ka furan yahay wadamo badan oo Afrika ka samaysan I think waa kana sidaa kan fiirisid wajida wadamada Djibouti waa tana Ethiopia waa tana Kenya waa tana Uganda waa tana Ethiopia marka boodo wuxuu leeyahay xataa Egypt haddii lagu joogo wadamadanito dadka Afrika jooga inay wax ku furaan fududka dadka joogo Europe because ani Europe haddaan joogo hadda ani waxaan furtay interactive wuxuu igu xiran yahay wax la yiraahdo ISK wax kale maahan aanan ahayn account waxaa loo dirayaa account-kayga zero tax weeyaan ilaa iyo $30,000 zero taxkaas marka muxuu leeyahay zero taxka wuxuu leeyahay in waxaa loo diraa taxation maxaa la dhahay wadankan maxaa la dhahay xarunta taxka cashuurta bixiso ayaa automatic loo dirayaa so they know okay sidaas marka maxay intaas ii furaysaa haddii aan qaadan kala sidaas leedahay 212 ii furan wuxuu leeyahay maxaa waaye waxaa bixinaa cashuur ah in 30% flat waxaa la dhimaneeda waxaa ka hadal ma jiro profit kasta mar walba aan stock gado iska gado kulli waxaas dhan waa inaan hadda aniga inaan u diro waay marka ani waxay noqonaysaa koowaad lacag waxaan dhahay iska gado labaad shaqadaas dhan noqoto waa how many stocks I sell and buy laakiin tan waxay ku fiican tahay iskaygani waxay ugu fiican tahay ama qofka hadduu Sweden dego haddaa adiga i fiirsanaya Sweden degan tahay waxay kugu fiican tahay xataa yes canshuurta loo diray laakiin 1% aa lagaa qaadaya haddii 30,000 ka badan tahay so ilaa 30,000 waa zero canshuur so adaa iskale waxaa 30,000 markay ka badato wixii 30,000 ka badan waxaa bixinaysaa 1% waxaa malaya 30,000 markay ka badato mareykanka weli dividendka iyo wuxuu ka qaadanaya 15%giisa because 50% flat waa 15% oo mareykanka iyo 15% oo euro oo Sweden ah so waa jaban waa lagu qaransanaa marka taas igu fiican yahay laakiin Afrika ma maleynaya in systemkaas uu jiro hadduu jiro iska fiiri laakiin muu baahin laakiin iska fiiri muu baahin ku dhahay because canshuurada iyo waxay iska fiiri lacagta hadii yartahay muhiim ah iyo xitaa muku dabagalaya laakiin haddaa lacag badan meesha kugu jirto laga yaabaa in ay maaragtaa aa u badan tahay inay xaq u heshid so marka wadamada dhan ay ka furan tahay tan waxaan soo dhigayaa groupka oo telegramka soo dhigayaa groupkaas ka helaysaa insha allah linkigan hadda soo gelinayaa haddii ku sameynaya soo gelinaya linkiga oo telegramka meeshaasaan isku arkayna insha allah وبالله التوفيق.